Michael Jackson mid ka mid dadkii ku waalnaa qoobka ciyaarka ee dunidan soo mara 12 sano kadib dhimashadiisa maxaad kala socotaa sababtii ka dambeysay dilkiisa marunba inuu diinta islaamka qaadan rabay maxaad kala socotaa hal sabab oo ay gaaladu ka baqeen taasoo keentay dilkiisa imsamar ayuu qalleen ku sameeyay wajigiisa ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan aabihii qoobka ciyaarka Michael Jackson oo aan wax idin kaga sheegi doono magaciisa saxda ah waa Michael Joy Jackson wuxuu Agost 29 1958 ku dhashay magaalo dhacda gobolka Indiana oo lagu magacaabo Gray wadanka Mareykanka waxa sidoo kale loo yaqaanaa Michael Joy Jackson Michael Joseph Jackson waxa iska dhalay Joy Jackson iyo Katrina Jackson oo ahayd gabar aad ugu waalnayd ciyaaraha cricketka waana wiilkii ugu saameynta badnaa qoyskii reer Jackson noloshiisa dhanka qoobka ciyaarka oo ahayd tan markii dambe ka dambeysay ama lagu sababay dhimashadiisa ayaa waxa ay tahay mid aad u la yaab badan waxaana dadka ugu badan ee adduunyada qayb dhan oo kamid ah ay ahaayeen kuwa aad ula dhacay qoobka ciyaarkiisa waalida ahaa iyo waxyaabaha aanay sameyn karin kuwa isaga la midka ah xilligiisa taageerayaal milyuumaad gaaraya oo uu lahaa ayaa lagu sababeeyaa inay tahay sababtii ugu weyneed ee loo dilay kadib markii laga baqay inay diinta islaamka ku raacaan markii la ogaaday warar soo shaac baxay oo sheegayay in uu isagu doonayo inuu qorsheeyo inuu isagu ku biiro diinta islaamka ama uu qaato taas ayaana waxay ahayd shakiga ugu weyn waxaana shakigaas mid ka weyn uu yimid markii Michael Jackson sheegay inuu doonayo gabi ahaanba inuu joojiyo masraxyada uu showyada ku qabto si rasmi ah diinta islaamka u qaadan lahaa in dad badan ay isaga soo raaci lahaayeen jacayl ay u qabaan darteed balse iyagoo taas ka duulaya naaziyiintii uu ka soo jeeday ayay iyagu dileen nolosha kale ee Michael Jackson markaan eegno waa aabeefka uga tagay 3 carruur oo kala ah Paris Jackson Michael Jr iyo sidoo kale Prince Michael II waxaa jira dhaqamo lagu xanto inuu lahaa Michael laga soo bilaabo dabayaaqadii 1980 Jackson wuxuu noqday qof marar badan bedelay wajigiisa qalliin badanna ku sameeyay dad badan ayaana waxa iyagu ay sababeeyeen siyaabooyinka qaarkood ku sababay in ninkan uu ku dhaco cudur ku dhaca jirka oo isagu xataa sheegay inuu aabihiis ka dhaxlay sanadkii 1993 waxaa Michael Jackson ku dhacday fadeexadii ugu weyneed ee qof isaga la mid ah ku dhacda waxaana lagu eedeeyay inuu galmo ku sameeyay ilmo yar oo uu dhalan inay saaxiibo ahaayeen taas ayaana noqotay fadeexadii ugu weyneed ee Michael Jackson uu guriga kala soo bixi waayo inkastoo ay arrintu isbedeshay dhakhtarkii gooniga ahaa ee Michael Jackson waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee lagu sheego in dilkiisa loo adeegsaday isla markaana uu ka dambeeyay dhimashadiisii kadib ninkii dhakhtarka gooniga u ahaa Michael Jackson waxa uu sheegay in Michael uu aad ugu adeegsan jiray dawooyinka kuwa hurdada waxaana cirbad u gooni ahayd oo Michael lagu diri jiray si uu u hurdo 5 Abriil 1990 waxay Michael Jackson u ahayd mid ka mid ah saameyntii ugu weyneed markii uu masrax kala soo muuqday madaxweynihii xilligaas George H.W. Bush iyadoo tani ahayd min madaxweynaha Mareykanku u arkay sumcad weyn maadaama uu la sawirnaa mid ka mid ah dadka dunida saameynta weyn ku lahaa Michael Jackson 1993 ilaa 1991 waxaa la sheegaa inay tahay xilli uu la kulmay xaalad caafimaad oo aad u darnayd inkastoo xilligaas xaaladihiisu ahaayeen kuwo marba marka ka dambeysa isbedbedelayay waxaana taasi daba socday showyada uu qabanay oo iyaguna ahaa kuwo aad u saameyn badan 9 January 2002 Michael Jackson ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta lagu magacaabo American Music Award taas oo ahayd mid uu isagu xilligaas oo ahayd mid ka mid ah abaalmarinadii ugu waaweyneed ee uu Michael Jackson ku guuleysto wadanka Mareykanka waxa uu ka qaatay abaalmarino aad u sarsareeya taariikhda dhimashadiisa 25 June 2009 Michael Jackson waxa isagu u geeriyooday ka hor inta uusan ka soo muuqan London show uu doonayay inuu gabi ahaanba ku soo gabagabeeyo
showyadu isagu qabto, waxaase taasi ay timid markii Michael 3 isbuuc ka hor uu isagu sheegay inuu show qabanayo, balse inta aan la gaarinba wuu geeriyooday. 25 Juun 2009 da'diisu waxay ahayd 50 sano, taasoo ka dhigan in Michael Jackson ku geeriyooday da'da 50 sano jir, magac badanna ka sameeyay dunida, inkastoo dad badan dhaliilsan yihiin qaliimada isdabajoogga ah ee wejigiisu ku sameeyay, kuwaas oo saamayn iyo sidoo kale dood badan dhaliyay. daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan gaarka oo aan kaga hadlayay Michael Jackson. haddii aad ku cusub tahay channelkeena, soo dhawow subscribe inoo saar, waad mahadsan tahay.